بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. geedka lagu magacaabo baamiye waa geed kulay dadkaas labada webi dhaxdooda ku nool si fiican u yaqaanaan. waa geed kamid ah qudrada la beerto ahna geed gaab ma aha geed sanooyin iska gaarahayo sida mataqaana oo raqaygii oo kale oo noocaas oo kale ma aha. waa geed beerashadiisa yani soo la laabto xillina oo maxaan ku leedahay qalalo xillina yani uu qoyan yahay. waxaa la isticmaalaa baamiyaha sida hadda aan u badanahay qoyaanka la isticmaalaa mooy qaleelka waxaa laga dhigtaa abuur in dib loo abuuro. geedkaasi fawaa'id fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdiis dhigay. waxaa lagu tilmaamaa geedaha geedba macnaha qayb ayuu aad iyo aad ugu sareeyaa sida mataqaanaa luzuujaadka wax la yidhahdo ama se dhareertada ama dhareerka xaggiisa dadka ka dhammaaday maxaan ku idhahdaa sida jilbihii iyo maxaan ku idhahdaa laalaabatidii oo kale iyo maxaan ku idhahdaa oo u baahan in ay garaasa mise wax la yidhahdo saabuniyaad eeleya caafimaadka markii looga hadlayo saabuniyaadka saabun ahaan waayo maxaan ku idhahdaa dhaqdhaqaaqa meeshaas saas u dareemaysa oo maxaan ku idhahdaa waxyaalaha oo dareensiinayo waxa weeyaan waa qeybahaasi ayaa ka mid ah dhareerka oo maxaan ku idhahdaa laga helo. geedkaasi waxa weeyaan fawaa'id fara badan ayuu u leeyahay bini aadanka. fawaa'idiisa waxaa la yidhaahdaa dhinaca la yidhahdo ilmaha oo kale korsiimo oo dhaqso ah ayuu u leeyahay ayagoo banaanka joogay ayagoo uur ku jir ahba. markii la yidhaahdo hooyada oo xaamilada ah maalan in ay aad iyo aad inay u basato waxaweye laga maarmaan ay tahay. marka geedkaasi fawaa'idiisa waxa weeyaan macaadin fara badan ayaa ilaahay dhexdiis dhigay, vitamins fara badan ayaa ilaahay dhexdiis dhigay. waxaa la yidhaahdaa dhinaca la yidhaahdo calool fadhiga waa aad iyo aad uga roon yahay. ma aha marka baamiya marka soo qaado maalan sheeyaasha wuxuu ka mid yahay loo badsado wax la yidhahdo indaajaadka amase waxyaalaha oo isla markii wax bisleeyo ayay ka mid yihiin. koostada haddaad soo qaado maalan oo jarjartid koostadii ood karisid oo aad ku dartid xoogaa ilaa macnaha soo qaado 15 xaba baami yani inta u jarjartid ku dartid koostada dhammaanteed waxay noqonaysaa mid oo maxaan ku rahdaa dhammaanteed isku dhiintay oo waxaad weynaysaa maxaan ku rahdaa inay caleentii taagtaagneed waad weynaysaa waayo way bislaysaa ayadaa bislaysa waay. marka taasina marka waxa weeyaan waa fawaa'id oo mathalan maxaan ku rahdaa dadka bulshada aad iyo aad yani oo yani ugu maqan ayaa dareemaysaa. koosta markii la karsanayo in oo ayadoo iska taagtaagan un la iska karsado la iska cuno, laakiin koostada lagu kariyo baamiya waa ka macaan tahay waana ka vitamin badan tahay. vitaminskeeda waxaa ka mid ah vitamin A ayaa ku jira oo aad iyo aad ugu badan. qudrada badanaha vitamin C ay ku badan yihiin ogtihiin. marka vitamin A-ga aad iyo aad ugu badan yahay. waxaa ku badan vitamin la yidhahdo B3 waa ku badan yahay. waxaa ka mid ah B1 iyo B6 labadaas B markii la yidhahdo waa B1 B3 B6 waxa weeye waxay ka mid yihiin waxyaalaha oo ilaahay dhexdii maxaan ku rahdaa dhex dhigay baalka la baamiyaha. waxaa ka mid ah vitamins la yidhahdo vitamin C-ga ayaa ka mid ah oo qudrada kale oo taasin la wadaago. marka inahaas markii la yidhahdo waxa weeyaan macaadinta soo qaado calciumka ka mid ah, waxaa ka mid ah ironka ka mid ah, waxaa ka mid ah zingiga ka mid ah, magnesiumka ka mid ah, manganiiska ayaa ka mid ah. inahaasoo dhanna waxay ka mid yihiin waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ee dhexdhigayo baashaas maxaan ku idhahdaa baamiyaha oo yani yaa laga hela ka mid yihiin. marka baamiyaha qofka oo odayga ah amase waayeelka ah iyo ninka yar labada waxa weeyaan isku si ayay wax u taraan insha Allah. marka waxa weeye baamiyaha fawaa'idiisa fawaa'id la soo koobi kara ma aha in oo maxaan ku idhahdaa had iyo goor la laazimana aad iyo aad ayaan ugu boorinaa bulshada Soomaaliyeed insha Allah. shayga fawaa'idiisa haddaan rabno waxa weeyaan waa la badsadaa oo si fiican loogu badsadaa. waxa weeyaan haddii aad ku dartay maraqii 20 xabo ama 15 xabo aad ku dartid ma dareemaysid. waxaad ka dareemaysaa kaliya dhadhan oo macnaha maxaan ku rahaa jiidma leh ayuu ka dareemaysaa. jiidmadaasna waa waxyaalaha aan leenahay fawaa'ida laga helayo ay ka mid tahay leenahay insha Allah. laakiin kaligiisa in isagoo madax bannaan khaalis oo waxba aan lagu darin keligiisa asoo waxa laga isticmaalahaa ilaan hadda waxa weeyaan jariid oo sida hadda Britania mise wadanka Ingiriiska oo ka soo baxday Daily Telegraph yiraahdo waa tii waqti dhow ay qortay waxay qortay jariidaas ay leedahay
macnaha baamiyaha fawaa'ida laga helo ayaa waxaa ka mid ah in aad iyo aad maxaan ku rahdaa maadada jolocogenka la yidhaahdo ile markii la yidhahdo sonkorta hoosay u dhigta la yidhahdo qeybaha ka mid ayaa waxaa ka mid ah insulin iyo jolocogen jolocogenka waa waxyaalaha la-yahay ka mid tahay marka maadadaas ayaa waxaa laga helaa ay kuleeyihiin maxaan ku rahdaa baamiyaha marka waxaa weye sonkorowga inay yani u roon tahay ayaa la sheegayaa waxaa sidoo kale baamiyaha aan hubnaa oo waxa la yidhahdo cholesterolka inay baabi'iso insha allah geedka kani waxaa maxaan ku rahdaa sidee loogu daweeya hadii la yidhaahdo waxaan arkay inuu qaato qofka 5 xabo oo baamiye ah uu soo qaado afka hore iyo dabada inuu ka jaro kadibna uu ka dhigo 4 qeybood macnaha 4 jeex uu ka dhigo isla markaasina biyo bakeeri oo kula soo qaata magalaas oo dhex dhigo isla markii waxaa meeshii ka baxaya dhacaankii oo caddaa oo baamiyaha lahaa ayaa meesha kusii degaya baamiyaha marka dheecaankiisa marka usii degana qofku waxaad moodaa maxaan ku rahdaa in oo yani uu heli karo waxyaalihii u baahnaa amase dhareerkii ha ahaado ama fawaa'idii ha ahaato waa helayaa marka maadada aan leenahay febriska amase aan leenahay oo ku jiro oo maxaan ku rahdaa caloosha jilciso oo u diida inay nuugto maxaan ku rahdaa sonkortii maxaan ku rahdaa waxaan leeyahay saxaradii asaas soo nuugahaya isla markii waxaan ku rahdaa wasaqda kusii deynaya waxa haddana difaac uu noqonayaa dhiiggii maxaan ku rahdaa sonkortii jirka ku jirta inuu sii nuugo oo loo sii qaado waayo difaac uu noqonaya asaa waxa wey maadadaas ku jirta ayaa celinaysa oo febriska la yidhahdo marka waxa weeyaan mustaqbalka wax badan ayaa lagaga filayaa baamiyaha insha allah in looga helo marka soomaalida kulley degsiimada aan qabna ayaa waxay ka mid tahay qofka 1 maalin 2 maalin 7 inuu qaato war sida neefta iyo raashinka aad ugu baahan tahay ayaa raashin kasta marka lagu sheego ay faa'iidadooda yani loo baahan yahay ma aha marka habeen iyo maalin in lagu bogsoonayo yani taas degdegsiimo taas aad yani waxa weeye waxaad moodaa waa qabnaa marka degdegsiimo noocaas in la iska dhaafo oo la laazimo waa sifada hadda aan sheegayna ugu sheegnayo subaxdii inay 5 xabo qaataan ay qaataan hameenkii 5 xabo ay qaataan oo biyahaasna la dhex dhigaan intay 4 jeex ka dhigaan marka dheecaankaasina cabitaan ahaan ay ka dhigtaan waa iska dabiici shayga dabiici ahna waxa weeye haddaad ka qaatid hal ka qaatid iyo haddii 10 ka qaatid waa shay iska dabiici ah maxaa yeelay hal xabba bay waa cuni kartaa 2 xabban haddii u baatan waa cuni kartaa waa isku macnaha wax hadda dhibaato ay yani leeyihiin ma aha insha allah marka shayga kaasi marka waxa weeye lama laha ha qaato qofka intaasi maalintii laakiin kiimiye ahaan markaan rabno dawo sida hadda sokorta aan u sheegay oo kale waxa weeye 10 xabaa loo qoray maalintii qofka subaxdiin 5 u qaato galabtiin 5 qaato taasi waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha oo mataqaanaa tajaaribta oo la soo maray ka mid tahay oo caalamkana macnaha ku boorinayo ummadda maxaan ku yidhahdaa inay isticmaalaan oo arrimaha noocaas ka mid yihiin baamiyaha waxaad moodaa markii la yidhaahdo karootada ayaa soo dhaweyn karta karootada ayaa soo dhaweyn karta oo ayadana fawaa'id noocaas oo kale leh waxaa kale oo sidoo kale oo soo dhaweyn kara waa baradhada ayadana waxay ka mid tahay waxyaalaha oo fawaa'ida aadka yani u badan ay leedahay ka mid tahay marka waxa weeyaan qeybana sida toonta iyo basasha oo kale iyo waxay maxaan ku la falgashaa bacteriyada iyo virusyada iyo noocyadaas ayagana macnaha waxay leeyihiin kuwana vitaminiski iyo macnaha macaadintii kale iyo ay wataan ayagana marka waxa weeye midba gaarba yani insha allah ilaahi subxaanahu wa tacaala yani dhex dhigay fawaa'ideeda kulley beerashada ma aanan gaarin hadeer ayaa xoogaa yar dadka waxaad moodaa indhaha ay kala furayaan beerashada webi keliya ma ahee maanta webiyada dadka leh ayaa waxay ka fikiraan inay qotaan ceelal webi kastaba agaarkiisa ama aseenda kastaba agaarkeeda in laga qodo ceelal laga qodo oo riigag la geliyo sidaas marka waxaa wadanka meelo fara badan haddii ceelal laga helo waxa weeyaan waxaad moodaa in oo beerashada aad iyo aad usii badnaanaysa way webi kumad meel la yidhahdo matalan meesha la yidhahdo hargeysa oo kale webiya ma maraan laakiinse qudrad nooc alla nooci rabn waa lagu beertaa wakadalika sidoo kale bariga boosaaso xaggeeda macnaha qudaarta waa la beertaa mana ka baxa webina ma laha baydhabo oo kale markaad fiirisid koostooyinka iyo waxyaalaha koostada waxa ka soo baxda waad yaabaysaa oo maalintii waxaa lagu keenaa intaas baabuur waaweyna lagu keenaa hase ahaatee waxaas dhan waxay ka mid yihiin webi ma laha marka waxa weye waxaa aad iyo aad u habboon in beerashadii loo soo jeesto taasaan marka kulley meelaan ka bixin ma lehe
beerashada in loo soo jeesto habkii wax loo beerahayna insha Allah la fidi taas muhiim ah waaya doctor baamiyaha ka waran ma la dhihi karaa faa'iido inta leega tirada badan hadii aad sheegtay si dadka uga soo ag dhawaado oo uusan dadku ay sameen fog uga doonin qudaarta lagu talinayo in guryaha lagu beerto ku jira waa ka mid noo karaha sida begelka loogu beerto ayaa guryaha loogu beertaa oo sida markana hadba yani dadkan forestry ku dheer oo matana qaybta beerashada iyo waxaas ku dheer hadii la kaashado waa la heli karaa waxba yani dhibaato oo malay mahayo ilaa waxaan ognahay UNICEF markay joogtay Soomaaliya siliga Amerikaanka guri dushiisa oo matana oo cabaaro ilaa matana soo qaad waa 20 ma dhamaan gurigaas dushiisa bariis lagu beerayo oo guriga waxa man reerka waxay quudanayaan oo yani qoladii Mareykanka markaas joogtay waxay ka soo saarnaan dushooda ka soo saaran jireen marka waxa weeye wax oo hada beerashada dhibaato leh ma laakiin anaga beerashada xageeda aan u soconba marka geedahana sidooda geed miroodka iyo geedaha waxtarka leh in la beerto muhiimada gaar ay leeyihiin insha Allah marka subax kasta inta dimisha qaato suuq wax ka soo galatid waxa ka haboon in guriga ku beerto insha Allah xanuunada faraha badan ee dabcan loo calwaay maanta adduunku uu kula jiro dagaalka in laga guuleysto lagu xusay baamiyuhuna wax ka tari karo waxa kamid ah cudurka la yiraahdo dhiigkarka bal hadaad marka la sharaxaad dib ugu laabato sida uu baamiyuhu u caawin karo bukaankii qaba dhiigkarka dhiigkarka sida waxa weey waa naqaana baamiyaha iyo dhiigkarka laba maado horta kala yihiin oo markii ay wataan baadi markaan iraano baamiyo maxaa tahay waa baaridun رطب ساس أيالي هذا وبارد وقو وان رطب وقويه أما دي كرك مركز هذا وحوين وحار وكل يكو وحدنا وحنقولنا يا قيبت اللي هذا جاف وأذكيه مركوا الشيء لا بالشيء نقولنا يعني وإنه كل شيء لا بالشيء مركوا أبس واي وواحد يسكت دوين هاي مركز وبارد رطب كان وحار جاف لا بد من حنقول هذا وما يستفر الجاف ما هي الرطب له وحار رطب وحاول بارد رطب لا بد النوع أساسي كالنقطة مركب إن شاء الله وحويا وسكوب مقابل مركب وحوي وحال صوت شيء ديكرك إنه روي هاي وحال الشيء محنقول هذا كوليسترول إنه بابيو وحال الشيء إنه محنقول هذا وحلي هذا سكرت أورون تهاي يعني بابيو كدار دواءهان وحيالها أن حس كرنو اللي هاي وحيالها أن كبرني وحكم ده سكرت لكن ولد ديكر بقول كي سجاش مديكر معناها مديكر يعني معناها أبواب بعد مديكر لفشيت كيسو كشرا لفشيت وحيالها اللقطة أدي أهمية ولا كمدين لفشيت كواتانري مواد كوجس هذا فبرس على هذا فبرس إنه حوين وحيالها اللي هذا أو معناها محنكل هذا اللي هذا محنكل هذا بوشة وطة وحيالها اللي هي كمدين مركب وحيالها سلم وحيقولوا يمحتها هي قيبت اللي هذا قبس مرة قبسن كي يقفك ومطغنا أو حنون أو كدريم لها كريها قبس مرة يعني لو ما قهرت هسه كلمات بامية مركب كريها وحكم دي السنكر أيام مطغنا دح فريسته كليها سكرت دح فريستنا وحوين ومحنكل هوا بابيس وصدرات هذا مركب كليه سكرتي وحوين محنكل دي كركي انت والله قتل waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka fariinta bulshada aad uga tagayso in sha Allah waxaan ilaa wixii laga faa'iideystay in sha Allah fawaaidooda la arkay ruux kastaba gurigiisa waa keeli kara in la mid ah rubac waxa weey markii la yiraahdo xisaabadka beeraleyda way beeraleyda markii laga soo laabto waxa weey tuman soo qaado tuman waxa weey 6 talaabo oo isku weer ah ninkii 20 haysto guri 20 ku jiro waxa weey tuman ma waynahay حقيقة مركب حوين وحاكمها إن قف يصير وحلو بيرن لها يكون ده الجلوس إنه كهل إن شاء الله تاس أو ويل اللص أوضة الماء كوسي حمارنا يعني هنا واللص أوضة يعني لو تجاري إن شاء الله أريمها تاسي هذه هذا قبولنا بشر المهجر